Soomaaliya ayaa laga qaaday cunaqabatayntii saameyd 31 sano kadib kulanka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay ka yeesheen kaasoo si aqlabiyad leh loogu codeeyay in meesha laga saaro xayiraaddii hubka ee saarneyd Soomaaliya ilaa sanadkii 1992. Golaha Ammaanka ayaa xilligaasi qaraarkiisa ku saleeyay si looga hortago qulqulka hubka ee dalka xilli dagaallo ay ka jireen dalka, kuwaasoo ka dhashay markii meesha laga saaray dowladdii uu hogaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre. Dadaallo isdaba joog ah oo ka soo bilowday sanadkii 2012 ayay Soomaaliya ku guuleysatay maslaxadda caalamiga ah sidii dalka looga qaadi lahaa cunaqabataynta. Maxay ahaayeen marxaladihii uu soo maray cunaqabataynta hubka Soomaaliya? Si aad u ogaato daawade, sii sheer garee muuqaalkan lana sii wadaag saaxiibadaada kugu dhow. Bishii